kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa weli xoojinaysa hamigeedii ku aadanaa ciidanka ka tirsan kooxda Bianconeri Juventus ee Paulo Dybala. hadalhaynta ugu weyn waxay tahay maadaama toddobaadkii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ay xusaysay in si gaar ah u daneynayaan ciidanka u dhashay wadankaasi Isbaaniska Isco kana mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee ku sugan garoonka Santiago Bernabeu. waxaana soo baxaya sheekooyin ku aadana in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay lumin karto xidigaas reer Spain ee Isco oo si gaar ah u daneynayso kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus iyadoo loogu faa'iideysan kara dalabka ciidanka u dhashay wadankaasi Argentine ee Paulo Dybala. maxaa yeelay waxay kooxda kubadda cagta Juventus ay daneynaysaa oo kaliya in Isco ay la soo wareegto halka Real Madridna qorsheedu uu yahay in Paulo Dybala ay geeyaan magaalada Madrid wadankaasi Isbaanishka. majaladaha wadankaasi Talyaaniga ayaana markaa xusaya in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay markaas sameyn doonto sharci kale ee ku aadan in xidiga isku bedelasho ciyaartooyba ay sameyn doonaan maadaama labada kooxood ba iska doonayaan ciyaartooyda sida Isco iyo Paulo Dybala. haddaba kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa macquul ah inay u adeegsato xidiga Isco dalabkeedu ku aadanaa xidigaasi Paulo Dybala oo dhawaan asna markaa uu sheegay inuu ku qanacsaneen waqti kale uu la sii qaato kooxda horyaalka wadanka Talyaaniga ka dhisan ee Bianconeri Juventus. waana mid kaliya la aaminsan yahay madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez uu diyaar u yahay in uu isku shaandhe ku sameeyo qaar ka mid ah ciyaartooyda ku sugan kooxda kubadda cagta Real Madrid. Paulo Dybala wuxuu qayb ka yahay xidigaha sida gaarka uu u xiiseynayo madaxweyne Florentino Perez ayadoo markaa loo adeegsan doono hamiga wiilka reer Spain ee Isco oo loo gacan haatinayo horyaalka wadankaasi Talyaaniga. kooxda ka dhisan horyaalka Ligue 1 wadanka Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa waxay u dhaqaaqayaan ciiraan ka tirsan kooxda Borussia Dortmund ee Julian Weigl. laacibkani ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa waqti wacan ku qaadanaya horyaalka wadankaasi Germany. laakiin wakiilka ciiraankaasi ayaana markaa qiray in ciiraanku aad ugu qanacsan yahay waqtiga kan kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain waxay doonaysaa laacibkaasi inay ku soo xoojiso qaybteeda qadka dhexe waana muhiimadda kaliya oo ay sheegeen in laacibkani jokerka saddex option ka ciyaaraya inay markaa ay ka faa'iideystaan. jirada Sky ee wadankaasi Germany ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay muhiimadda gaar ay saarayso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund inay hakiso xidigahooda ugu muhiimsan ee waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya kooxda. maxaa yeelay 7 ciyaartooy ka mid ah kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxa weerar kala duwan ku soo qaadaya qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan Ingiriiska, Spain iyo sidoo kale Talyaaniga. laacibkani Julian Weigl waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu hadalhaynta badan ee dhinaca suuqa ciyaartooyda maadaama kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ay tahay kooxdii saddexaad oo si qaas ah markaa u sheegtay inay doonayso xidiga kooxda Borussia ee Julian. Barcelona wali waxay hamigeeda uu yahay inay markaa eegato dhowr ciyaartooy ay ku soo kordhin doonaan xil ciyaareedkan garoonka kooxdaasi Camp Nou Stadium waxaana ay ka fiirsan doonaan in ay bal dalab ka gudbiyaan xidiga ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Frankfurt Luka Jovic sida jirada Mundo Deportivo marka ay qorayso. laacibkani ka mid ah xidigaha qaybta weerarka ah ee ka soo jeeda wadankaasi Serbia Luka Jovic ayaa marka 12 gool waxa uu suurtageliyay 15 kulan oo u saftay tartamada oo dhan xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Frankfurt ee ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Germany. Barcelona waxay doonaysaa bal marka hore inay si weyn u eegto qaab ciyaareedka ciiraankaasi Luka Jovic oo sidoo kale loo gacan haatinayo horyaalka wadankaasi Ingiriiska. weeraryahankani reer Serbia ee Luka Jovic ayaana markaa waxa uu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan ee kooxdaasi. maxaa yeelay waxay kooxda kubadda cagta Barcelona ay in muddahay si weyn u baadagoobaysay ciyaartooy da'yar ka ciyaara qaybta weerarka waxaana ay doonayaan laacibkani haddii uu ku guuleysto tijaabada ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ka damacsan tahay in Luka Jovic uu noqon doono sanadaha soo socda mustaqbalka weeraryahanada kooxda kubadda cagta Barcelona marka ay ku duuli doonto. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la leeyahay waa uu ku qasbanaan doonaa in kooxdiisa Real ay bixiso adduun lacageed gaaraya 10 milyan oo lacagta banka ah taa oo u dhiganta 12 milyan oo lacagta dollarka haddii ay doonayaan Jose Mourinho inay dib ugu celiyaan garoonka Santiago Bernabeu. warbaahinada wadankaasi Isbaanishka saaka waxay si weyn u gorofeenayaan sheekooyinkaasi maxaa yeelay Real waxay doonaysaa in Jose ay dib ugu celiso magaalada Madrid si mar kale uu qabto hoggaanka kooxda Real Madrid. xil ciyaareedkani 2018-2019 horyaalka Isbaanishka si weyn ayay u liidataa kooxda kubadda cagta Real Madrid. Santiago Solarina waa uu ku fishilan yahay in kooxda madaxeeda markaa kor u soo qaado.
balse madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez weli wuxuu ku celcelinayaa in rajo uu ka leeyahay Jose Mourinho mar kale inuu noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid. heshiiskii hore ee sanadkii 2016 ee Manchester United iyo Jose Mourinho ayaa waxa uu ahaa haddii kooxdaasi ama laga eriyaamo iskiisa uu kaga tago inta heshiiska uu kula joogo kooxda Manchester United in markaa kooxdii iibsato ama kooxaha ka dhisan Premier League ha noqdo ama kooxaha ka baxsan horyaalka Ingiriiska in magdhow ama lacaga kooxda kubadda cagta Manchester United marka ay qaadan doonto. mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Ingiriiska haddii Jose Mourinho ay la wareegto adduun dhan 15 milyan oo lacagta banka iyo marka kooxda kubadda cagta Manchester United marka ay heli doontaa. koox ka baxsan horyaalka Ingiriiskana haddii ay la wareegto Jose Mourinho waxa Manchester United magdhowhaan u qaadan doontaa adduun dhan 10 milyan oo lacagta banka. waxaana sidoo kale la xusayaa in madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid bal uu eegan doono shuruudaha horyaala in Jose Mourinho lagu geeyo horyaalka wadankaasi Spain. waana rajada uu leeyahay Real Madrid inay bixiso 10 milyan oo lacagta banka u dhigata 13 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka taa oo Jose Mourinho uu ku noqon karo inuu u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid. لاعبka ka soo jeeda qaaradda Afrika Sadio Mane waxa uu leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool waxaana ciyaaraanka marka uu beeniyay in uu xilligan uu soo dhaweeyo dhowr dalab ee ka soo gaaray horyaalka wadankaas Isbaanishka. Sadio Mane ciyaarankana waxa uu leeyahay waxaan diyaar u ahay inaan la sii qaato waqtiga tan iyo sanadka 2023 kooxda kubadda cagta Liverpool. waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa tartamada ay ka geysanayso kooxda kubadda cagta Liverpool xil ciyaareedkan ka soo gudubnay iyo xil ciyaareedkan ayaa laga soo xigtay Sadio Mane. Mane ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool waxa uu ku biiray sanadii 2016 heshiiska kooxdaasina wuxuu ka dhici doonaa bishii lixaad ee sanadka 2023 waxaana laacibkan reer Afrika Sadio Mane uu u muuqanaya in marka uu san dhageysan doono tan iyo inta uu heshiiskiisa uu kaga dhamaanayo Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool. soo kale waxa uu aaminsan yahay in kooxdiisa Liverpool sanadkan ay noqon doonto mid loo calaamasaali doono ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska ee Premier League. waan la soconaa in ay jiraan kooxo si weyn uga xifaaltamaya kala horeynta Liverpool haddana waxaan aaminsanahay in kooxda kubadda cagta Liverpool ay tahay sanadkeeda muhiimada gaar ayaan siin doonaa inaan ka farxino taageerayaasheena ayaa laga soo xigtay Sadio Mane. kooxdii Chelsea fadhi uma yaala maxaa yeelay waxa ay xilligan xoojinaysaa qaybteeda qadka dhexe ayadoo dhowr ciyaartooy qadka dhexe ka ciyaara ay aad marka u haysato kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa haddana waxa la leeyahay waxay u dhaqaaqaysaa laacibka u dhashay wadankaasi Faransiiska Andre Rabiot ee ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain oo sidoo kale lala xiriirinayo kooxda kubadda cagta Barcelona. laacibkani ayaana marka kooxda kubadda cagta Chelsea ay doonaysaa in uu buuxiyo booskii uu ka tagay wiilka reer Spain Cesc Fabregas ee ku biiray kooxda kubadda cagta Monaco ee horyaalka wadankaasi Faransiiska. Chelsea ilaa hadda maysan soo bandhigin beeca rasmiga oo ay diyaar la tahay inay kula wareegaan wiilka reer Faransiis Andre Rabiot oo la doonayo in laga soo ambibixiyo magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska. balse Chelsea ayaa la leeyahay bisha January inta ay ku soo bandhigi doonaan dalabka rasmiga ay ku doonayaan in Andre Rabiot ay ku geeyaan gigada Stamford Bridge. kooxda AC Milan ee ka dhisan horyaalka wadanka Talyaaniga ayaa dhinaca kale dib u soo celisay wadahadaladii ay ku doonayaan ciyaaraanka qadka dhexe Manchester United ee Marwan Fallana. laacibkani 13 jirka u dhashay wadankaasi Belgium ayaana marka la xusayaa in marka loo gacan haatinayo horyaalka wadankaasi Talyaaniga gaar ahaan kooxda AC Milan ayaana daneynaysa in ciyaaraankaasi garoonkeeda San Siro marka ay geyso. wiilkani kooxda Manchester United ka tirsan ee Marwan Fallana ayaa fursado wacan ka heli jiray tababarihiisa hore ee Jose Mourinho marka uu hogaanka u hayo kooxda Manchester United. waxaana ay muuqanaysaa in xilligani uusan fursad ka heli doonin tababaraha ku meelgaarka Manchester United ee Solskjaer taasi oo marka kala fikirta in xiddigani Marwan Fallana oo mar kale u dhageysan doono dalabyadii ka soo gaarayay xil ciyaareedkan ka soo gudbin horyaalka wadankaasi Talyaaniga. Fallana ayaa Manchester United waxa uu ku biiray sanadii 2013 heshiiska kooxdaasina waxa uu ka dhici doonaa bisha lixaad ee sanadka 2020. ciyaaraankan ayaa sidoo kale waxa aad loola xiriirinayaa sida kooxda kubadda cagta FC Porto iyo mid kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi China. AC Milan waa kooxda ugu horeysa oo wali qorsheynaysa inay mar kale raajiciso dalabkeedii xiddiga reer Belgium ee Marwan Fallana. Manchester United ayaa sidoo kale waxa ay aad u daneynaysaa inay xoojiso dalabkeedii ku aadanaa laacibka hore kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho oo si weyn ugu dhibaatoonaya Stadia Camp Nou ee kooxda Barcelona.
maadaama laacibkani kooxda kubadda cagta Barcelona sanadkii 2018 ay ku iibsatay adduun lacageed gaaraya 130 milyan oo lacagta Euro-ga ayaana markaa la sheegay inuu xilligaani uu la qabsan yahay jahwareerka kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaana heshiiska Barca uu kula joogo ayaa waxa uu dhici doonaa sanadka 2023 balse Manchester United waxay diyaar la tahay inay dib ugu soo celiso Premier League iyadoo hadalhayntu warbaahinta waddankaas Isbaanishkan ay tahay Barcelona in ujeedkeeda ay kaga faa'iideysan karto Philippe Coutinho in PSG loo gacan geliyo arintu ka hadin wiilka reer Brazil ee Neymar Manchester United waxay diyaarinaysaa qorshe ay dib ugu soo celin karto horyaalka waddankaas Ingiriiska maxaa yeelay waxa la xusay in Philippe Coutinho uu aad marka u dhageysan doono dalab walba ee ka baxsan kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaas Spain laacibka kooxda Chelsea Pedro waxa uu leeyahay xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay Cesc Fabregas inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Monaco oo horkaciyo geesigii hore ee kooxda Arsenal Thierry Henry maadaama Cesc Fabregas uu dhawaan uu ku biiro kooxda kubadda cagta Monaco heshiis gaaraya 3 sano iyo bar ayaa haddana Pedro wuxuu leeyahay waan aaminsanahay in Cesc Fabregas uu hoggaanka u qaban doono qaybteeda qadka dhexe kooxda kubadda cagta Monaco waxaana sidoo kalena aan xusayaa in Cesc Fabregas uu yahay isku xiraha ugu wanaagsan ee ciyaartooyda ka ciyaara qaybta qadka dhexe waxaana sidoo kale rajeenayaa in uu ka dhex muuqan doono horyaalka waddankaasi Faransiiska Fabregas waxa aad u xiiseynayay kooxaha ka soo jeeda wadamada Qatar iyo Shiinaha balse Pedro in riyadiisi ay ahayd oo kaliya Cesc Fabregas inuu u dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Monaco Thierry Henry ayaana riyadiisa u rumowday maadaama Pedro uu leeyahay anigu runtii kalsooni weyn ayaan ku qabaa Cesc Fabregas in uu yahay haliyay si weyn loogu yaqaan dunida waana laacib isku xiri doono sanadaha soo socda kooxda kubadda cagta Monaco in natiijooyin kala duwan ay ka gaarto koobka laga ciyaaray isla gudaha waddankaasi Faransiiska